amiiraddii xilka lagu dhaafiyey falxumadeeda darteed. beri hore ayaa waxaa jiray boqor aad loo xushmeeyo kaasi oo lagu magacaabi jiray boqor Bediaco. waxa ay saldanadiisu ahayd oo ay xukumi jirtay deegaano ballaaran oo ka tirsanaa dalka Ghana. dadka deegaanka ayaa waxaa aad u soo jiitay naxariista iyo wanaagga boqorka, halkaasna uu jacayl fara badan iyo qadarin uu ku mutaystay. tani waxa ay deegaanka ay u horseeday in boqortooyadu ay noqoto mid nabad iyo barwaaqo caan ku ah. islaantiisii oo uur lahayd ayaa foolatay, ma jirin cid loo ogolaaday in ay wax ka ogaato, gaar ahaanna qolka boqoradu ay ku dhalayso oo aan ka ahayn nin ay aad u aaminsanaayeen oo la oran jiray Adoma iyo dhakhtarka ilmaha ka dhalinaya boqoradda. waxa ay doonayeen inay xaqiijiyaan ammaanka iyo xafidaadda xogta qoyska reer boqor labadaba. ilmihii dhashay waxa uu noqday gabar isla markiiba loogu magac daray Bawahemaya. gabadha waxaa laga ilaalin jiray indhaha dadka oo aad ayaa looga qarin jiray, kaliya waxaana arki jiray boqorka, boqoradda iyo ninka u adeega cidda ee la aaminay ee lagu magacaabo Adoma. ma jirin cid weligeed aragtay amiiradda yar ee Bawahemaya ee la sheego aan ka ahayn inta qasriga boqortooyada ku sugan ee aan soo sheegnay. markii ay da'deedu ay gaartay 18 sano ayaa maalintii dambe waxa la qabtay xaflad weyn si loogu caleema saaro gabadha yar ee Bawahemaya, si loogu caano shubo oo looga dhigo amiirad rasmi ah. dadkii ku dhaqnaa boqortooyada oo dhan ayaa la casumay, golo weyn oo kharash fara badan la geliyey ayaa la diyaariyey si dadka loo baro amiiradda cusub ee Bawahemaya. maxaa si xigay gadaasheed? dadkii oo dhan ayaa hal mar ku qoslay oo afka isla galay, gabadhu fool xuma, tan miyaa hadda amiirad noo noqonaysa? warba'a dhurwaabay u eg tahay. meel kasta nuxnux ayaa ka bilaabantay, halka qaarkood ee cod dheer ay ku caddeeyeen sida aanay u aqbalsanayn gabadha foosha xun ee la doonayo in ay mustaqbalka xukunto. xafladdii iyo caleemasaarkii waa la joojiyey. intaa wixii ka dambeeyey boqorka iyo boqoradda ayaa ku heshiiyey in xukunka uu la wareego wiilka ay dhashay amiiraddu ama isla boqoraddu, halkaasna lagu tuuro oo meesha looga saaro tii yarayd ee foosha xumayd ee Bawahemaya. boqor Bediaco oo lahaa 3 xaas, nasiib darro ma uusan dhalin wiil isaga bedela, keliya waxa u joogtay gabadha yar ee araggeeda la nacay ee Bawahemaya. boqorku naaga badan ayuu guursaday isaga oo raadinaya wiilkii mustaqbalka bedeli lahaa, laakiin waa uu waayey wax wiil ah oo gabadhii uun ayaa u joogta. kolka ay dariiqa marayso ayaa lagu qoslaa oo lagu jeesjeesaa sababta oo ah muuqaalkeeda. boqorka ayaa u hanjabay dadka caynaya gabadhiisa, isaga oo soo saaray amar lagu ciqaabayo qof kasta oo ku maadaysta gabadhiisa yar. dadkii ayaa bilaabay in ay boqortooyada si tartiib ah ay uga baxsadaan kadib markii ay ogaadeen inaanay joojin karayn kumaadaysiga amiiradda foosha xun. kolkii uu boqorku ogaaday in uusan waxba ka qaban karin arrintan, ayuu joojiyey ciqaabta dadka ku qoslaya Bawahemaya. boqorka waxaa dhibtay gabadhiisa guriga ku xiran ee murugaysan, kadibna waxa uu sheegay in uu xoolo badan uu siin doono wiilka guursada Bawahemaya. ha yeeshee waa la waayey cid rabta oo guursata. ugu dambayn amiiraddii yarayd ayaa u dulqaadan weyday bahdilka lagu hayo, kadibna waxa ay go'aansatay in ay boqortooyada ay isaga baxdo oo deegaan kale oo aan laga aqoon ay aado, bal inay hesho nin ku raba sida ay tahay, laakiin aan ku soo raacayn qoyska ay ka dhalatay iyo hantida ay markaasi ay haystaan. eedadeed Adama ayaa horay u sii raacday, tuulo kale ayay tageen, mana garanayn meel ay aadaan iyo hoy ay seexdaan toona. meel suuq ah ayay habeenkaa seexdeen, dhaxan iyo qabow daran ayaa jiray. ugu dambayn kolkii ay dhowr habeen darbijiif ay ahaayeen, waxaa la hadlay wiil dheer oo qurux badan oo beeralay ah. wiilku ma garanayn cidda ay yihiin labadan qof ee reer boqor, laakiin waxa uu ugu diirnaxay qaab bini'aadannimo oo qura. guri dugsoon ayuu geeyey, waa ay isbarteen oo sheekaysteen. wiilku wax dan ah kama uusan lahayn muuqaalka gabadha, laakiin sheekadeeda ayuu ka dhex arkay in ay tahay gabar fariid ah, caqli iyo karti isku darsatay, laakiin aan garanayn meel ay aado. gabdhuhu xogtooda waa ay ka qariyeen Dakwan oo ah wiilka beeralayda ah ee cidlada ka soo xareeyey, mana uusan garanayn in ay ka soo jeedaan boqortooyo sare, isla markaana ka soo baxeen qasri weyn oo qaali ah. go'aanka amiiradda ka soo duday boqortooyada
ayaa ahaa in ay doonayso qof sideeda ku qaata oo aan ku gelin taariikh nololeed, qoys iyo mansab midna. Dagwan ayaa waraysi ugu dhaqaaqay labada haween ah ee u soo martiyey, iyaguna waxa ay sheegeen in ay cadaalad darro ay uga soo carareen qoysaskoodii, iyaga oo ka qarinayay in ay ka yimaadeen bartamaha qasriga ugu weyn deegaanka oo dhan. Isaga laftigiisu waa uu u garaabay gabdhaha, waxa uu u sheegay in uu ku soo koray agoon iyo rajannimo oo ay waalidkiis dhinteen, isaga oo aad u yar, hase yeeshee hal adayg uu u dhashay uu uga dabaashay caqabadaha nolosha. Subax walba guriga ayuu uga sii jarmaadi jiray, isaga oo beertiisii ku sii jeeda si uu u soo qoto. Casarkiina waa uu u soo laaban jiray, isaga oo miro iyo caleen cagaaran ku raran. Jikada ayuu u geli jiray, markaas ayuu uga soo tuuri jiray casho aad u dhadhan wanaagsan. Muddo 4 bilood ah ayuu sidaa ku hayay dumarkii martida ahaa, weligiisna ma uusan weydiin wax lacag ah ama in ay shaqada ay ka caawiyaan. Amiiraddii ayaa la yaabtay naxariista iyo bini'aadantinimada wiilka. Xogaa caashaq ah ayaa galay. Maalintii dambe ayay u sheegtay in ay doonayso in ay beerta ay u raacdo si ay shaqada adag ula qaybsato. Laakiin Dagwan waa uu diiday. Ugu dambeynna waxa uu ka oggolaaday in ay maanta ay la soo joogaan oo beerta ay soo arkaan. Waa halkii uu xiriirkooda caashaq ka soo bilowday. Dagwan iyo Boahameya waa isku soo dhowaadeen oo waxaa siyaaday fahamkii iyo ixtiraamkii uu midba midka kale u qabay, ilaa ay gaaraan heer ay isku soo hiloobaan saacadaha yar ee ay kala maqan yihiin. Galab kasta beerta ayay ka wada yimaadaan, laakiin dadka tuulada ayaa ku kacay wiilkii, iyaga oo dhagaha ugu shubaya eraya uusan jeclaysan, sida waa kii agoonka ahaa oo helay naag daanyeer u eg. Wax kasta oo lamaanaha lagu yiraahdo waxa uga sii kordhay adayg iyo kalgacayl dheeraad ah. Jacayl ayay la dhaceen ilaa Dagwan soo bareeray oo uu sheegay in uu doonayo in uu guursado, iyaduna hawraarsan ayay tiri. Ileen waa tii horey loo yiri jacayl biri ma goyso, biyana kaama mayraane. Sifooyinka gabadhu ay isku darsatay sida qalbi wanaag, karti iyo caqli, iyo sifooyinka dhinaca wiilka ee howlkarnimada, hal adayga, dulqaadka iyo deeqsinimadu waxa ay sababtay inay isu arkaan haddii adduunyada ay jiraan laba qof oo isu qalma inay iyagu ay yihiin. Waa ay wada aqal galeen oo inantii ku gurbeeshay muuqaalkeeda oo qura. Maanta waxa ay heshay qofkii u qalmay ee sideeda ku fahmayay, kana helay isaga oo aan xitaa ogeyn in gabadhu ay amiiro tahay. Maalin ayay kula kaftantay, maxaad u go'aansatay in aad guursato qof sidan u fool xun? Waxa uu ugu jawaabay, quruxdu waa qalbiga, waxa aad hibo aad u leedahay, waxaanay haysan gabdhaha dusha ka qurxoon laakiin gudaha ka maran. Haa, waxaa ii bidhaamay qalbigaaga qurxoon. Inta ay ku soo dhowaatay ayay laabta gelisay. Show amiiraddu mid hooda iyo ayaan leh ayay ahayde. Wiilkii hal mar ayuu xoolo helay oo lacagaystay, cirkaa ayuu maray. Waxaa arooskooda looga kala yimid degmooyin fara badan oo ay ka mid yihiin degmooyinkii boqortooyada. Hal mar ayaa waxaa amakaag iyo yaab haleelay dadkii gabadhan caayi jiray oo maanta loo shiday aroos ay ku baxeen xoolo xadka bax ah. Halkoodii ayay boqor iyo boqorad ay ku noqdeen. Dadkii ka yimid deegaanka fog ayaa u sheegay Dagwan in xaaskiisu ay tahay amiirad. Waa uu weydiiyey waxa ka jira xanta suuqa, iyadana runta ayay u sheegtay oo waxa ay tiri, waxa aan doonayay nin igu qaata dadnimadayda oo aan wax muraad ah ka lahayn taytalka aan sito iyo qoyska aan ka soo jeedo toona. Waana helay oo waa adiga ayay tiri. Boqortooyadii ay ka soo tageen waa ay burburtay kadib markii uu odaygii aabbaheed ahaa geeriyooday. Ileen wiil la caleemo saaro ma dhaline. Reerkii waa ay fakhriyeen. Ilaahay waxa uu qadaray in degmadii gabadhan yasi jirtay ee caayi jirtay oo dhan ay marti ay u noqdaan boqoraddii lagu dayriyey foolxumadeeda. Waa ay ka shallaayeen oo dad aad u fara badan ayaa raaligelin bixiyey, iyaduna waa ay iska cafisay dhammaan dadkii ku xadgudbay. Dulucda sheekadan ayaa ah weligaa qof araggiisa ha ku yasin, hana ku quursan. Waa intaasi oo uu gudaha ka qurux badan yahay. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media, like iyo follow na soo dheh. Haddii se aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale
haylaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan. wixii talo iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca kommentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.